5, 4, 3, 2, 1. kooxda kubadda cagta ee Somaboyz ee ka dhisan magaalada Naakirig ee waddanka Netherland ayaa waxay ka qayb gashay koob afar geesooda oo lagu qabanayay dalka Switzerland magaalada Bern. kooxdani ayaa waxay ka hortimid koox kale ka socotay isla magaaladaasi Bern. ciyaartii ugu dambeysay ee finaalka ahayd ayaa waxay ku soo dhamaatay 3-2 oo ay ku adkaatay kooxda Somaboyz, waxaana ka muuqatay dardar dheeriya iyo dadaal xoogan kadib waxayna ku guuleysteen koobkii afar geesoodka ahaa ee lagu qabtay dalka Switzerland. halkaasi waxaa si wanaagsan ugu soo dhaweeyay gudoomiyaha kooxda FC Somali Bern Brothers ninka lagu magacaabo Nuure Abikar oo ku magac dheer Qurba, ka oo aad gacmo furan ugu soo dhaweeyay kooxda Somaboyz. qaar ka mid ah mas'uuliyiinta Somaboyz iyo ciyaaryahanada oo iyaguna farxad daraadeed la dheelaya waa kuwan inaga hantiya. Somaboyz ayaa koobkaasi dhagaweynaha ah waxay dib ugu soo laabteen dalka Holland ee magaalada Naakirig. Maxamed Yumbi, Ayaha TV, Holland. waxaan halkan hambalyo ugu dirayaa dhammaan asxaabteyda qaaliga ah Somaboyz meel kasta oo joogtiin. maanta alxamdulilah guulaan soo hooynay waddanka banaankiisa. waxaa idin leeyahay dhammaan hambalyo 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 xasan baad. اي مامية انت كعزوم انت من الساحب جيت الكوكو سوق انا او بكر مواكن ما شاء الله ما شاء الله ساحب ما شاء الله.